amartuna dhawaanada marka halkan waa halkii uu qaraxa ka dhacay goordhow ama saacad ka hor qiyaastii waana isgoyska sayidka ama barta control ciidamada ilaaliya madaxtooyada ay ku leeyihiin taalada sayidka ee Muqdisho sidaad aragtaan sayidkii waa ka halkanna waa halkii uu gaariga ku qarxay qaraxa ayaa halkan ka dhacay waxaana jira gaariga qarxayna waxa safka ku jiray baaritaanka halka uu qaraxa ka dhacay isgoyska sayidka qaraxa markii uu dhacay waxa xusid mudan durba goobta waxa soo gaaray ciidamada amniga gaar ahaan kuwa booliiska iyo sidoo kale hay'adaha kale ee qaabilsan daadguraynta dhaawacyada iyo meydadka bajaajtan waxay ka mid tahay ama gaadiidkan wuxuu ka mid yahay kuwa dadkii saarnaa ay halkan ku geeriyoodeen ilaahay ha u naxariisto warbaahinta ayaa in muddo ah waxa ay ahaayeen kuwa loo diidanaa halka uu qaraxu ka dhacay waxaana hadda daqiiqado ka hor loo ogolaaday wariyaasha inay soo galaan oo muuqaalada iyo sawirradaba ka qaadaan sida uu qaraxu u dhacay burbur xoogan ayaa jira waxa xusid mudan qarax ka dhacay halkan oo ka horeeyay qaraxan masaajidkan ayaa ku burburay oo sayidka u dhow hasaahate hadda masjidka waa uu bad qabaa inkastoo uu jiro burbur kale oo dhismayaasha kale wadada u dhow uu soo gaaray gaadiidka sidaan hore idinkugu sheegayna safka ku jira ayuu ka mid ahaa gaariga qarxay gaadiidkii kale ee u dhawaa gaarigan gubtay ayaa ka mid ah oo dadkii saarnaa la tuhunsan yahay inay qaraxa ku dhinteen way badnaayeen burburka gaadiidka ciidamada amniga ayaa muhiim u tahay waxay ahaayeen kuwo diidanaa in goobta la soo galo marka laga reebo gaadiidka ambalaasta iyo dadka kale ee gurmanaya waxyaabaha xanuun kale ee sida gaarka loo sheegay waxaa ka mid ah gabar ku sugnayd halkan oo ah goob dumarka lagu qurxiyo ama timaha loogu hagaajiyo in dhaawac culus uu soo gaaro dhanka caloosha ah sida qof mas'uul ah oo idaacadda kulmiye ee Muqdisho uu sheegay dadka hadda waa kuwa goobta loo ogolaaday inay gudaha u soo galaan badi waxay baadigoobayaan eheldoodii oo ay halkan ku tabayaan gaar ahaan kuwii hareeraha wadadan ku ganacsanayay ayaa kuwa ugu badan ee la raadinayo sidoo kale waxaa xusid mudan gaadiidkii badnaa ayaa halkan ku sugnaa in badan oo ka mid ah markii qaarkood ay si aad ah u burbureen dadkii saarnaana ay dhinteen durba goobtii waa laga qaaday waxaa ku sugan goobta taliyayaasha ama saraakiisha booliska ee degmooyinka Waaberi hodan iyo howlwadaag sidoo kale saraakiil kale oo dhanka militariga ah ee ilaalada kontaroolada madaxtooyada laga galo ayaa iyaguna ah kuwa ku sugan ma cadda ilaa hadda nooca gaariga qaxay iyo waxa uu ahaa hasaahate waxa la sheegayo ama xisada mudan ayaa ah in gaariga uu ka mid ahaa kuwa safka baaritaanka bartan ee sayidka ama halka laga baaro gaadiidka dhanka madaxtooyada u gudbaya ee sayidka gaadiidkii ku jiray safka uu ka mid ahaa gaadiidkii ku jiray ayuu ka mid yihiin ama birahan ay ka mid yihiin sidoo kale la sheegayaa inay burburku uu qayb ka ahaa علي علمي صلاة وكمد ورياش إذاعة كلمية يا إلى جوجا أو يسقوا ضدك مركي هو رسول جاري كمد علي إن هذا المحطة على تيميديا دعوة عبد الغني وما صنتها وحن إمد جوبتان حلق وقرح لعيك كذب وحن به كوارك جد ليد أو كل واد أنت اللي حقيقي أما به يقرتين أفر قفود يلا وقفود دعوة سيدك عبد الغني واحد جرا جواري سيد إن ده قط يا أركان جواري جوبت كوبا بعدين معناها كل واد جد جواري عبد الغني وسوق واحد عثمان قابت حتى أتجنن وقرح كل عي وقابت وقرح كل عي قبل قد سنت كي هري جاري قرح وروح اسمي داميها ودي قابت وقرح قجيسي واي مرك عاد قص إنك سو قرح على علمي وما سنت هاي سيدا إذا مقطع داود يال أما صاحبة النقلة داونا يبرتا فيسبوك كينن وهاي اللي كان سعنا يا نظافتي ودربك باللعبتي هالكي وقرح وقد عي وكون برها أما هذه جديد كقرحية لسروري جاري قرح كواي كم ومية ملتوه مية من سوالها يعطينك أنت باورتان كلي يا لم بيا لم تدور كمية جاري نوع اسمه لا شيء نوع اسمه لا شيء جاري قرحية وهي هاي مجلس إلا هذا قبرنا إنك جديد كأمداد كم ده عملنا هلامها ميجا وجاري الشيء ساعة جاري وحال حقيقيين وكم ده قوة صفقة لباري كوجري dad intay baa jireen ka soo tiro rasmi ah aan la haynin
sidoo kale dad dhaawacmay ayaa jira oo iyaguna gaadiidka gurmadka degdega ah ee ambalastu ay qaadeen saaxiibayaal halkan waa KNN wixii warar ah ee ku soo kordha qaraxan ama faahfaahin ah ay hay'adaha la amnigu bixiyaan waad la socon doontaan.